Camera. Ready? Madiaba. والله إني مع سمري وفنكي يسوقانتي وقفه. معنى وين بيسميسا حديت سالان سoo qaatan nimcaan oo kale waqtigii cusbaa in markii uu horeysay wareysigii uu horeeyay anigu aan ka qaado horteeda uu soo fadhiisto maanta nimcaan uu yahay fanaan Soomaali oo dhan codkiisa jeceshahay oo la dhageysto basti way andartade illa hadamu bogosunde ukawe sidide horta dareen gaar ah oo waliba farxad laba ii sameynaysa 9 sano iyo bar halkii aan kaga tagay fanku maanta ma joogo waqtiga TV-ga aan joogayna maanta ma joogo waxaan joogaa astaan oo barnaamijyadiisa qaacishow marka aan daawanayo yani aad iyo cajab gelin jiray oo caawana anigoo jooga aan arkay heestiyo live loo tumayo barnaamijyadu waxay kaga duwanayeen barnaamijyadii hore fanaanka kaliya heesiyo waxba suurtagal ah in playback fanaanka ku heeso caawa laakiin heestiyo live loo tumayo kooxdiyo joogta fanaankii agteeda ka heesaya waxaan u arkaa wax cusub iyo fan cusub oo aaban ma aragtay aan nasiib iyo shacab markaas inay indhaha igu qabtaan nimco anigu yar baan daawin jiray aniga maanta dheer leeg waxaana ka yaacday marka wallahi wax weyn bay tahay nimco long time ka maqnayd caawo markii ay ugu horeysay aan hadana anigu isku bilaabanay waa nasiib baan oran karaa wallahi barnaamijka waan daawin jiray anigu weyn iyo anigu yar baan daawin jiray iyadii cawka Allah naxariistay ay daadin jireen su'aalihii ay dadka kaga dhixin jireen baa ku xasuustaa su'aalihii wada naxdinta wadnagooyga waan aad ugu xasuustaa iyo qofkiyo soo dhaqaaqi kari waayay horta macno weyn bay sameeysaa hadii saalaan soo qaatan nimcaan oo kale waqtigii uu cusbaa in markii uu horeysay wareysigii uu horeeyay anigu aan ka qaado horteeda uu soo fadhiisto maanta nimcaan uu yahay fanaan Soomaali oo dhan codkiisa jeceshahay oo la dhageysto haddana aan rajaynay in fanaaniin kale oo badan ay sida nimcaan oo kale barnaamijkaygu intuu noqdo barnaamijkii ugu horeeyay berina ay noqdaan fanaaniin Soomaalida oo dhan ma aragtay geeyga Soomaalida oo dhan laga jecelay aniga macno weyn bay taasi sameeysaa fanaanku marka isagoo la garanayo uu ku yimaado iyo marka isagoo cusub intuu ku yimaado deetana nasiibaad u yeelato inaad tiraahdo markii ugu horeysa wareysi ka qaad farxad bay sameeysaa qof kasta oo talent leh hiba ku jirto waxaan leeyahay fanaanka ka horeeyay maalin uu fursad helay annaguna fursad iyo kala astaan hadaan nahay aan diyaar ku lanahay inaan ku siino